واتسلامتين دمانتينا كل مقال كان هردع ملهن وحو دميسترو yahay muuqaalkii kan ka horeeyay hadii aan soo daawanin qaybtii hore waxaad ka daawan kartaa linkiga description-ka sidoo kale commentiga ugu horeeya waan bin garan doonaa wuxuu inoo joogay aan ka bilaabanaynaa dilaaga shanaad waxa lagu magacaabaa Awdar Bandey oo loo yaqaanay Ted Bandey isagoo yar ayay hooyadiisa iyo aabihiisa kala tageen waxa soo barbaarisay ayeeyadiisa oo hooyadiisa dhashay sidoo kalena hooyadiisii wuu la noolaa yacni isaga ayeeyadiis iyo hooyadiisba way wada noolaayeen weligiisii ma uusan ogaanin aabihiisa cid uu ahaa oo weligiis ma uusan aqoonsanin aabihiis wuxuu soo barbaaray isagoo aaminsan in ay ayeeyadiisii tahay hooyadiisna ay tahay walaashiisa nolosha adag ee caruurnimadiisii uu soo maray ayaa waxay sababtay xanuun dhanka maskaxda oo yacni yaraantiisii waxa uu qabay dhibaato caafimaad oo dhanka dhimirka ah waxa uu dilay intii uu noolaa 36 qofood oo dhammaantoodana dumar ahaayeen wuxuu ahaa nin aqoon sare leh oo dhammaan gobolada dalka ku safri jiray waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda Washington dilaanimada waxa uu bilaabay 1964 inta uu jaamacadda dhameynin ka hor ayaa waxa uu dilay dumar fara badan 1966 markuu jaamacadda dhameeyay kadib waxa uu guuray magaalada Utah ee dalka Mareykanka waxa uu gacanta ku dhigay gabdho fara badan oo dhammaantood dhalinyaro ahaa oo da'yar isagoona marka hore ula dhaqmayay sida inuu yahay qof garab u baahan yacni qof caawinaad u baahan oo iska dhiga uu la saaxiiba muddo markuu la socday kadibna intuu si xun u dilo ayuu kufsan jiray kadibna wuxuu u sii guuray gobolka Florida halkaas oo ka sii watay dilalkiisa booliskana qabashadiisa aad bay ugu adkaatay iyagoona mar waliba arki jiray booliskuna waxay dhaheen markaan aragno quruxdiisa iyo aqoontiisa ismaba dhihi jirin ninkan ayaa sidan naxariis darada dumarka ula dhaqmaya ugu dambeyn adiga gacanta ayaa lagu dhigay markuu geystay dilkiisii u dambeeyay wuxuuna ahaa cunug yar oo aan qaan gaarin oo 12 jir ah wuxuuna isugu daray dil iyo kufsi sanadku markuu ahaa 1975 waana la qabtay oo la xiray waxaana lagu cadeeyay inuu geystay kufsi iyo dilal fara badan waxaana lagu xukumay dil ugu dambeyntiina taariikhda markay ahayd 24 bishii January ee 1989 waxaa lagu dilay kursiga korontada oo ku yaalo xabsi kamid ah xabsiyada gobolka Florida shakhsiga lixaad ama dilaaga lixaad waa John Gacy wuxuu ahaa dilaa aad saqjaan u ah dilaanimadiisa waxa uu dheereed dhaqan xumo wiilasha yaryar ayuu afduuban jiray oo kufsan jiray dili jiray qaarkood markuu dilo kadib ayuu kufsi u geysan jiray sanadku markuu ahaa 1978 waxa uu qabsaday maskaxda booliiska aad bay ugu xanaaqeen waxayna ku sii xanaaqeen markii la waayay wiil 15 jir ah oo markii ugu dambeysay la sheegay in lagu arkay isagoo ka agdhow ama meel la taagan booliiska ayaa gurigiisa u dhacay oo gudaha u galay waxayna ka soo heleen 29 meyd oo caruur yaryar ah oo qaarkood xitaa googooyay waxa lagu helay guud ahaan 33 kiis oo dil ah waxaana lagu xukumay dil 1994 waana la dilay dilaaga toddobaad waa Jeffrey Dahmer 17 nin ayuu ku dhex dilay gudaha Ohio ee Mareykanka waxa uu ka soo jeeday ama ka dhashay qoys iska caadi ah si wanaagsan ay ugu dadaali jireen family-giisa oo waxbarasho ula jeclaayeen oo meel walba u geey jireen sidaas ay tahayna wuxuu noqday dilaa qaab daran oo laga baqo waxa uu ahaa qof waxbarashadiisa aad u hooseyso oo jaamacadda mar hore isaga baxay ciidanku ku biiray haddana wuu isaga baxay kadib wuxuu bilaabay inuu faraxumeeyo uu kufsado ragga saaxiibadiisa wiilashii asxaabta ahaayeen ayuu ku soo laabtay subxaanallah waxa uu siin jiray biir oo khamri ayuu ku daldali jiray marka hore intuu uu dhaho xafladan dhiganayna lacaga inoo haya ayuu inta marka khamriga ka dhirgaan oo si xun u cabaan inta ay sarqaansan yihiin ayuu ka faa'iideysan jiray intuu si xun u dilo haddana kufsan jiray qaarna inta aashita maskaxda ku duro ayuu sii haysan jiray maskaxdooda ayuu doorin jiray kadibna meel ayuu ku xiri jiray wuu iska haysan jiray ugu dambeyntii sanadku markuu ahaa 1991 ayaa mid ka mid ah dhibanayaashii u afduubnaa baxsaday oo u yeeray booliska kadibna inta la qabtay ayaa la xiray waxaana lagu xukumay in ka badan 900 oo sano 3 sano kadib 1994 waxaa dilay maxbuus kale oo isku qol ahaayeen nin kale oo meel iskula xirnaayeen isku qol ahaayeen ayaa dilay nacayb iyo xanaaq dartiis macnaha dhaqankiisii xumaayu la galaa u malaynaa meeshuu ku dhex dilay
dilaaga xigay waxa lagu magacaabi jiray Ed Gein. waxa uu ahaa dilaa dembiyada foosha xun uu geysanayay, xitaa filim sameeyaal fara badan ku qasabtay inay soo saaraan filimo waaweyn oo ilaa iyo hadda caalamka laga daawado. macnaha ficilada uu sameynayay shirkado fara badan oo filmaanta soo saara ayaaba ka faa'iidaystay oo waxay ka sameeyeen filimo waaweyn oo ilaa iyo hadda caalamka lagu daawado. waxa uu markiisii horeba kusoo koray guri aad u xun oo aabihiisa ayaa si joogto ah ugu isticmaali jiray khamriga oo istaaguba ku cabi jiray. isagana 5 sano oo xiriir ah ayaa aabihiisii khamriga la cabi jiray. muddo kadib qoyskiisa ayaa mid u dhintay. markaas kadib Gein hooyadiisa waxa ay ku beertay nacayb aad u weyn oo dhanka dumarka ah, waxayba dumarka oo dhanba uga dhigtay bahalo. isagana wuxuu u arkayay dumarka oo dhanba cadow. kadibna hooyadiisii ayaa dhimatay. dhimashada hooyadiisii kadib wuxuuba go'aan ku gaaray dumar oo dhanba inuu laayo. waxa uu mid ugu soo wadan jiray baararka, yacni kalaabyada, wuxuuna keeni jiray guriga, kadibna wuu dili jiray. markuu dilo kadib intuu googooyo uu cadcad u jaro ayuu ka samayn jiray agabka guriga oo yacni koobab hadhihin, saxamo iyo weelasha cuntada lagu kariyo. sidoo kalena wuxuu ka samayn jiray jaakado. ugu dambeyn sanadka markuu ahaa 1957 waxaa la waayay milkiilihii dukaanka qalabka dhismaha looga iibsan jiray, kaasoo la ogaaday markii ugu dambeysay qofka uu la kulmay inuu ahaa Gein. isla markii waa la soo qabtay oo la xiray, waxaana lagu helay 11 dil. sidoo kalena waxaa laga helay cudurka dhimarka oo yacni wuxuu ahaa qof maskaxiyan u xanuunsan, waxaana loo arkay inuu yahay mid aan ku habboonayn in la xukumo ama la maxkamadeeyo, waxaana lagu xiray Maanakoobi. noloshiisa inta ka dhimneed wuxuu ku dhamaystay cisbitaalka waalida ilaa ugu dambeyn uu ku dhintay 1984. dilaaga sagaalaad waa Albert Fish oo loo yaqaanay Bogeyman. waxaa loo diiwaangeliyey isagana dilal foolxun, googoyn jiray meedadka iyo kufsi 3 caruur ah, balse isagu wuxuu qirtay inuu dilay in ka badan 100 caruur ah. waxa warqad aad u murugo badan u diray mid ka mid ah faamilada uu caruurtooda dhibaateeyay, isagoona ku sharaxay qaabkii uu u afduubtay, u kufsaday, una dilay oo u jarjaray gabar yar oo ay dhaleen oo lagu magacaabi jiray Greybad. waxa uu warqadaasi kusoo qoray ma ahan wax aan foolxumadooda haatan halkan ku sharxi karno. waxa uu adiga ugu dambeyn hadalkiisa kusoo gabagabeeyey inay aad ugu dadaashay si ay iskaga badbaadiso oo xitaa qaniintay nin intaasi la eg, yacni qaniisho iyo cijo lagu dhuftay waxba kama taraane. kadibna wuxuu yiri waan ciijiyey ilaa ay ka dhimatay, kadibna jirkeeda waxaan u jarjaray qaybo yaryar si aan u karsado oona u cuno. waxayna igu qaadatay kulaha hilibkeeda inaan dhammeeyo 9 maalmood. acuudu billah, war wuxuu naxariis darana. wuxuu ahaa qof aad u murugo badan oo stress qaba, una waalan inuu cuno dadka kale. wuxuuba ku waashay inuu dad cuno. waxay ahaataba sanadku markuu ahaa 1934 waa la soo qabtay, waxaana lagu xukumay dil. ugu dambeynna waa lagu fuliyey oo waxaa lagu dilay kursi koronto 16 January 1936. dilaaga tobnaad oona ah qofta ugu dambeysa waa haweeney, waxaana lagu magacaabi jiray Alien. waxay ahayd dilaa aad u maskax badan, sidoo kalena dhiirigeliyaha filimka lagu magacaabo Monster. macnaha ficlaha ay samayn jirtay ee daaragtarada qaar filim ka samayn jireen. waxay markeedii horeba ka soo jeeday qoys burburay oo aad u khalafsanaa. yaraanteeda xitaa xadgudubyo ayaa lagu sameeyey oo waa la kufsaday marar badan. adiga xaalad caruurnimo oo adag ayay soo martay. markay weynaatay waxay bilowday inay jirkeeda ka ganacsato. markii dambena waxayba bilowday inay ragga mid u disho. way soo xarigelinaysaa adiga siyaabo kala duwan ay u soo xarigelisaa. kadibna intay disho ayayba sii balaqaysan jirtay oo waxay wataan ka qaadan jirtay. ugu dambeyn waa la soo qabtay oo lagu helay ilaa 7 dil 1992. waxaana lagu xukumay dil, waxaana lagu dilay cirbad sun ah 9 Oktoobar 2002. ugu dambeyn waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. fadlan ha iloowin muuqaalka inaad like saarto aadna sii share garayso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.